ورحمة الله وبركاته. سمراي دمانتين سلان كديب شيكادنا maanta idin la wadaagayo waa sheeko ka duwan sheekooyinkii aan hore idin ku soo gudbiyay waxaana ay kaga duwan tahay dhammaan sheekooyinkii hore la igu soo diray waxa ay ku saabsanaayeen ama ay ka hadlayeen qof walba dhibka isaga loo geystay laakiin ma jirin qof ka hadlay dhibaato isaga uu hore u geystay. gabadhanna waxay leedahay anigu waxaan ka hadlayaa waxyaabihii aan anigu hore u soo galay ama khaladaadkii aan geystay. wayna adagtaa qofku inuu khaladkiisa qarto ama uu sheego oo uu yiraahdo in dhibkaas aan anigu geystay. bilaaadankuna sida caadiyan waxa uu iska hilmaamaa waxa uu isagu dadka u geystay ama ula kac ha u geysto ama si kama ah uga dhaco, laakiin mar walba waxa hortaagan dhibaatada isaga loo geystay oo aan hilmaami karin. aad iyo aad baan gabadhan ugu mahad celinayaa. sheekadeedina waxay ku bilaabantaa sidatan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء عاد بانكو سلامي أذيك إيا ولا لها سلام كدير قصدا أيان شعلستي إنان إذن لو ذاقو إن بدن وان دقيستي برنامج كاقا لكن ولما أركن قف قلتك ويساقو كاقل لمانيه سشيغيا وحوالبا سبب أي ليهين قف ولبا وحاو ليهي ويل أما قبر باي حميسي لكن أذوقو محاد سميسي أما نفس كراتي ليس مويدين أبايو معا شيكا ذيذا واي كبضان تهيكوي هوري أنو ورقا إيو qoraalka kugu dheerayn abaayo macaan kow wax kama boodayo adigana sidoo kale ayaan ka rajaynayaa. abaayo macaan dhowr xiriir oo kala duwan ayaan soo maray aniga oo yar ayaan shukaansi ama hasaawaha bilaabay. waxaan imid wadanka USA anigoo 15 jira. wiil aan isku mar nimid ayaan isku dayay inuu shukaansiga i baro. waalid ma soo raacin, qaraabo ayaan la imid wadankan. wiilkii jacayl ayuu ii qaaday laakiin ani jacayl ma garanayn. wiilkii ayaa walaalihii uga sheekeeyay jacaylka uu ii qabo laakiin ani dhag jalaq uma siin. hase ahaatee qaraabadii aan soo raacay ayaan war ka maqlay oo warkii wiilka waxaa loo bedelay inuu aniga i caayay ama afxumo meelahaas ii mariyo. anigu colaad ayaan u qaaday isaga. markii uu arkay halka ay colaadu iga taagan tahay ayuu iiga haajiray gobolkii. صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان anoon ka hayn ayaa anagii soo guurnay misna waxa aan soo degnay gobolka uu deganaa dabaqa uu deganaa gurigiisa qolka ka hooseeya. amin duhur ah asagoo shaqo ka yimid ayaan arkay laakiin waan ka dhuuntay islama aanan hadlayn inta aan dariska ahayn. kadib habaryartay oo wadanka i keentay ayaa waxay tiri Minnesota ayaan u guureynaa 4 bilood kadib markaan deganayn meeshii, laakiin isagu magaaladii ayuu ku haray. abaayo muddo 10 bilood ah kadib ayuu dib ii soo raadiyay isagoo eegaya bal inaa wax iska bedelay. wuxuu ii soo bandhigay jacaylkii inuu weli ii qabo. أنا بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أساري. waan ka aqbalay walow aanan jacayl u qabin haddana way igu adkaatay. qofka intaas oo dhan i jeclaa inaan ma yadhaho. teeda kala danaysi baa igu jiray oo ah wax taleefanka biilka iiga bixiya ama waxaan u baahdo ii qabta ma haysan. ana waalidkay ama walaal iga weyn ma soo raacin oo heerka facay taagan yihiin ma istaagi karin. muddo 2 sano markay ka soo wareegatay ayuu guur ii soo bandhigay. aniguna waxaan moodayay guurkaba in ninka cunto loo kariyo guri la isla dego in mas'uulnimo meesha imaan ma moodayn. ta kale nolosha reerka aan la joogay ayaa ciriiri igu ahayd aniga oo leh ka bax noloshaan ayaan haye ku iri. reerkii ayaan u diray waalidkay waxay dhaheen way yar tahay gabadheenu waana ardayad ee u kaadi. aniga waa la ii canaantay labada dhinacba. qaraabada aan soo raacay iyo waalidkay balan waxaan ka qaaday maalinka aan high school dhameeyo inaan isaga guursado. calafka ayaa wax ka dhinaayeen. ta kale rag kale ayaan ku dulwaday walow kuwaasi xataa aanan jacayl u qaadin. meel ayaan ka shaqo bilaabay. waxaa jiray wiil aan aad uga helay qaabeyshankiisa
akhlaaqdiisa talo ayaa igu cakrantay salaad istiqaaro ayaan rabbi ku weydiistay hadduu khayr ii yahay inaan helo anigu waan ka xishoonayay inaan qof u diro ama aan ku dhaho waan kaa helay rabbi ducadii ayuu iga aqbalay oo habeenada kamid ah May 25keedii ayaa text message ii soo dhacay number aanan garanayn waxaan isku dayay inaan ogaado wuxuu noqday qofkii naftayda rabbi ay ka baryeysay mar in ay barato alxamdulillah ayaan hoosta ka yiri waan isbaranay la iswareysay maalmo kadib aniga oo isle talo miyuu ka helay ayuu ii soo bandhigay inuu iga helay oo uu doonayo xiriir inuu ila sameeyo waxaan ku yiri okay waxba kama qabo wiilkii jacayl baan u qaaday kii aan ballanta guurka ka qaaday oo guri diyaarsaday ayaan subax message u diray kuna yiri walaal iga raali noqo guurkaaga kuma faraxsani waayo jacayl kuma qabo مديني يا شراع الزمان لربوع الأماني لمدى زاه منير هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيف آلام مرير أبكتني صرخات الأيام wuu isku dayay inuu waxay fahansiiyo laakiin indhahaygu kii kale ayay raaceen wiilkii wax waliba oo uu igu soo hodan lahaa wuu sameeyay laakiin marna kama yeelin naftu way quusataa wuu iska quustay anigana jacayl baa ilaba lisaya wiilkii aan gadaal ka bartay alxamdulillah waqti macaan jacayl aan la soo koobi karin ayaan u qaaday isaguna iga daran adduunku wuu isbedelaa waxaad hore u gurataana waa ay ka daba timaadaa abaayo muddo 3 sano iyo bar ah ayaan wiilkii wada soconaa maalintii aan sanad wada soconay ilaa hadda xaalad guur markaan kala hadlo toobiga wuu bedelaa haddii telefoon aan kala hadlayana telefoonka ayuu jaraa si marka uu iigu soo celiyo toobiga uu u bedelmo wuxuuna ogaaday in jacaylkaygu uusan ka soo laabasho lahayn يا قدسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري waan ka gaari laahay abaayo macaan xataa waxaan isku dayay inaan iska guursado aniga oo isaga u sheekaynaya laakiin ninkii 2 maalin aanu sheekaysano waxaan ismoodaa inaan xariga islaamka meel uga dhacay oo nafta waxaan ka dhaadhiciyay inuu i qabo taa waxaan ku iri hanti kuguma raacin aqoon kuguma raacin laakiin waxa soo dhan waxa ka qiimo badan hadalka aan qiyaasta lahayn oo micnaha inoogu fadhin walaashay macaan adiga iyo walaalaha waxaan idinka codsanayaa inaad ii soo ducaysaan waan ogahay nafsi baa i haya oo hal ama 2 wiil ma xumayn wala walaalka aan guurka ka ballan qaaday haba u darnaado wiilkan aan jeclahay hadduu khayr iigu jiro iigu duceeya hadduusan khayr iigu jirina in rabbi bedel khayr qaba iigu bedelo waad mahadsan tahay abaayo adiga iyo dhageystayaasha raalina iga ahaada qoraalka ayaan idinku dheereeyay waad mahadsan tahay walaashay qaali raalina waanu ka nahay qoraalkaaga dheer waayo waxa uu naga caawinayaa in sheekada dulucdeeda la fahmo si markaasi wixii tala oo ku haboon loo bixiyo sheekada hadii aan la fahmin laakiin wax tala laga bixiyo badee lama garan karayo marka wax dhiba ma lahan waanad ku mahadsan tahay sheekadaada aad nala wadaagtay sida faahfaahsan haddana niyad samaan tale waxaan kuugu hambalyeeynaa inaad noqoto qofkii ugu horeeyay oo isagu qaladkiisa qirta inta aanu sheegin qaladka isaga laga galay talooyinka inta badan waxaan jeclahay inaan u dhaafo dadka dhageysan doona balse 2 hal ayaan ku dhihi lahaa midda koobaad waxa ay tahay horta ilaahay cafis weydiiso qofku hadduu qalad galo oo qaladkiisana uu qorto ilaahayna uu cafis ka baryo ilaahay waa Ghafuur Rahiim marka labaadna qaladka qofka aad ka gashay inaad cafiska weydiisato ayaa muhiim ah khaasatan wiilka intaad guurka ka ballan qaaday haddana aad tiri iga raali ahaw wiilkaas cafiska dalbo ayaan ku dhiilaa haddii ay suurtagal tahay ama inaad la xiriirto ay ku suuroobayso midda saddexaadna waxaan oran lahaa wiilka hadda uu xiriirka idinka dhaxeeyo qofka bilaadanka haddii uu ku jeclaado qalbigiisa laguma ciyaaro haddii aadan marka horeba waxaad la wada aysan wax run ahayn intaan qofku heerkaas gaadhin ama uu bilowga yahay ayaa wanaagsan wax walba inaad runta ka sheegto
laakiin qofkii intaad u sheekayso oo aad waliba sanado dhan intaad ka cunto haddana aad biri ka maalin meermeerisaa waa wax yacni qofka dilka dhaama waxyaabaha qaarkood marka Soomaalida dhamaanteedna waa wax ay u badan yihiin way ka siman yihiin ma oran karo laakiin badankooda waa dhibaatooyinka ugu badan ee dadka haysta qofkeena qalbigiisa ku ciyaarta maskaxdiisa aad wax yeeshaa waxaad u horseeday yacni noloshiisa qayb ka mid ah inaad baabi'iso waana dambi aad ka gelaysid mana mid adiga lagu dhaafayo marka waxaan oran lahaa walaashay waa tan iyadu qaladkeeda qirtay walaalow adiguna qalad ka geline wixii dhacay way dhaceen iminkana adiga sida maanta iyadu ay aaminsan tahay qalad ay hore u geysatay inuu nafsigeedii ka yahay adigana biri ka maalin markaad ogaato intaad calaacan lahayd maanta ka noqo oo gabadhaas walaasha ah ee aad 3 sano soo wada socoteen ee wanaagu idinka dhaxeeyo la dhamee oo iskuursada waana isugu kiin ducaynaya intaas wixii ka badan waxaan deenayaa dadka kaleeto dadiga aqoon badan ayaa kulay dhageysan doona oo iiga khibrad badan oo iiga waaya aragsan marka iyagaan deenayaa wixii talo oo dheeraada anigana inta sideen kuga baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan ku yiri okay waxba kama qabo wiilkii jacayl baan u qaaday kii aan ballanta guurka ka qaaday oo guri diyaarsaday ayaan subax message u diray kuna yiri walaal iga raali noqo guurkaaga kuma faraxsani waayo jacaylku ma qabo مديني يا شراع الزمان لربوع الأماني لمدى زاه منير هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيف آلام مرير أبكتني صرخات الأيام والله wuu isku dayay inuu waxay fahansiiyo laakiin indhahaygu kii kale ayay raaceen wiilkii wax waliba oo uu igu soo hodan lahaa wuu sameeyay laakiin marna kama yeelin naftu way quusataa wuu iska quustay anigana jacayl baa ilaba lisaya wiilkii aan gadaal ka bartay alxamdulillah waqti macaan jacayl aan la soo koobi karin ayaan u qaaday isaguna iga daran adduunku wuu isbedelaa waxaad hore u gurataana waa ay ka daba timaadaa abaayo muddo 3 sano iyo bar ah ayaan wiilkii wada soconaa maalintii aan sanad wada soconay ilaa hadda xaalad guur markaan kala hadlo toobiga wuu bedelaa haddii telefoon aan kala hadlayana telefoonka ayuu jaraa si marka uu iigu soo celiyo toobiga uu u bedelmo wuxuuna ogaaday in jacaylkaygu uusan ka soo laabasho lahayn حول قيد وأسير يا قدسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري waan ka gaari laahay abaayo macaan xataa waxaan isku dayay inaan ورحمة الله وبركاته سومالي دمانتين سلان كديب شيكادنا maanta idin la wadaagayo waa sheeko ka duwan sheekooyinkii aan hore idin ku soo gudbiyay waxana ay kaga duwan tahay dhammaan sheekooyinkii hore la igu soo diray waxa ay ku saabsanaayeen ama ay ka hadlayeen qof walba dhibka isaga loo geystay laakiin ma jirin qof ka hadlay dhibaato isaga uu hore u geystay gabadhanna waxay leedahay anigu waxaan ka hadlayaa waxyaabihii aan anigu hore u soo galay ama khaladaadkii aan geystay wayna adagtaa qofku inuu khaladkiisa qarto ama uu sheego oo uu yiraahdo dhibkaas aan anigu geystay bilaaadankuna sida caadiyan waxa uu iska hilmaamaa waxa uu isagu dadka u geystay ama ula kac ha u geysto ama si kama ah uga dhaco laakiin mar walba waxa hortaagan dhibaatada isaga loo geystay oo aan hilmaami karin aad iyo aad baan gabadhan ugu mahad celinayaa sheekadeedina waxay ku bilaabantaa sidatan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء عاد بانكو سلامي أديك إيا ولا لها سلام كدب قصدا أيان شعليستي إنان إذن لو وداغو إن بدن وان دقيستي برنامج كاغا لكن ولما أركين قف قلدك ويساقو كاقالي لمانيه سشيغيا وحواليبا سبب أي ليهين قف واليبا وحاو ليهي ويل أما قبر باي حميسي لكن أدوغو محاد سميسي أما نفس كراتي ليس مويدين أبايو معا شيكا ذا واي كبضان تهيكوي هوري أنو ورقا إيو qoraalka kugu dheerayn abaayo macaan kow wax kama boodayo adigana sidoo kale ayaan ka rajaynayaa abaayo macaan dhowr xiriir oo kala duwan ayaan soo maray aniga oo yar ayaan shukaansi ama hasaawaha bilaabay waxaan imid wadanka USA anigoo 15 jira wiil aan isku mar nimid ayaan isku dayay inuu shukaansiga ibaro waalid ma soo raacin qaraabo ayaan la imid wadankan wiilkii jacayl ayuu ii qaaday laakiin ani jacayl ma garanayn wiilkii ayaa walaalihii uga sheekeeyay jacaylka uu ii qabo laakiin ani dhag jalaq uma siin hase ahaatee qaraabadii aan soo raacay ayaan war ka maqlay oo warkii wiilka waxaa loo bedelay inuu aniga icaayay ama afxumo meelahaas ii mariyo anigu colaad ayaan u qaaday isaga markii uu arkay halka ay colaadu iga taagan tahay ayuu iiga haajiray gobolkii صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان anoon ka hayn ayaa anagii soo guurnay misna waxa aan soo degnay gobolka uu deganaa dabaqa uu deganaa gurigiisa qolka ka hooseeya amin duhur ah asagoo shaqo ka yimid ayaan arkay laakiin waan ka dhuuntay islama aanan hadlayn inta aan dariska ahayn kadib habaryartay oo wadanka i keentay ayaa waxay tiri Minnesota ayaan u guureynaa 4 bilood kadib markaan deganayn meeshii laakiin isagu magaaladii ayuu ku haray abaayo muddo 10 bilood ah kadib ayuu dib ii soo raadiyay isagoo eegaya bal inaa wax iska bedelay wuxuu ii soo bandhigay jacaylkii inuu wali ii qabo أنا بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أساري waan ka aqbalay walow aanan jacayl u qabin haddana way igu adkaatay qofka intaas oo dhan i jeclaa inaan ma yadhaho teeda kala danaysi baa igu jiray oo ah wax taleefanka biilka iiga bixiya ama waxaan u baahdo ii qabta ma haysan ana waalidkay ama walaal iga weyn ma soo raacin oo heerka facay taagan yihiin ma istaagi karin muddo 2 sano markay ka soo wareegatay ayuu guur ii soo bandhigay aniguna waxaan moodayay guurkaba in ninka cunto loo kariyo guri la isla dego in mas'uulnimo meesha imaan ma moodayn ta kale nolosha reerka aan la joogay ayaa ciriiri igu ahayd aniga oo leh ka bax noloshaan ayaan haye ku iri reerkii ayaan u diray waalidkay waxay dhaheen way yar tahay gabadheenu waana ardayad ee u kaadi aniga waa la canaantay labada dhinacba qaraabada aan soo raacay iyo waalidkay balan waxaan ka qaaday maalinka aan high school dhameeyo inaan isaga guursado calafka ayaa wax ka dhinaayeen ta kale rag kale ayaan ku dulwaday walow kuwaasi xataa aanan jacayl u qaadin meel ayaan ka shaqo bilaabay waxaa jiray wiil aan aad uga helay qaabeyshankiisa akhlaaqdiisa talo ayaa igu cakrantay salaad istiqaaro ayaan rabbi ku weydiistay haduu khayr ii yahay inaan helo anigu waan ka xishoonayay inaan qof u diro ama aan ku dhaho waan ka helay rabbi ducadii ayuu iga aqbalay oo habeenada kamid ah May 25keedii ayaa text message ii soo dhacay number aanan garanayn waxaan isku dayay inaan ogaado wuxuu noqday qofkii naftayda rabbi ay ka baryeysay mar in ay barato alxamdulillah ayaan hoosta ka yiri waan isbaranay la iswareysay maalmo kadib aniga oo isle talo miyuu ka helay ayuu ii soo bandhigay inuu iga helay oo uu doonayo xiriir inuu ila sameeyo ka guursado aniga oo isaga u sheekaynaya laakiin ninkii 2 maalin aanu sheekaysano waxaan ismoodaa inaan xariga islaamka meel uga dhacay
oo nafta waxaan ka dhaadhiciyay inuu i qabo taa waxaan ku iri hanti kuguma raacin aqoon kuguma raacin laakiin waxa soo dhan waxa ka qiimo badan hadalka aan qiyaasta lahayn oo micnaha inoogu fadhin walaashay macaan adiga iyo walaalaha waxaan idinka codsanayaa inaad ii soo ducaysaan waan ogahay nafsi baa i haya oo hal ama laba wiil ma xumayn walow walaalka aan guurka ka ballan qaaday haba u darnaado wiilkan aan jeclahay hadduu khayr iigu jiro iigu duceeya hadduusan khayr iigu jirina in rabbi bedel khayr qaba iigu bedelo waad mahadsan tahay abaayo adiga iyo dhagaystayaasha raalina iga ahaada qoraalka ayaan idinku dheereeyay waad mahadsan tahay walaashay qaali raalina waanu ka nahay qoraalkaaga dheer waayo waxa uu naga caawinayaa in sheekada dulucdeeda la fahmo si markaasi wixii tala oo ku haboon loo bixiyo sheekada hadii aan la fahmin laakiin wax tala laga bixiyo badee lama garan karayo marka wax dhiba ma lahan waanad ku mahadsan tahay sheekadaada aad nala wadaagtay sida faahfaahsan haddana niyad samaanta leh waxaan kuugu hambalyeeynaa inaad noqoto qofkii ugu horeeyay oo isagu qaladkiisa qirta inta aanu sheegin qaladka isaga laga galay talooyinka inta badan waxaan jeclahay inaan u dhaafo dadka dhageysan doona balse laba hal ayaan ku dhihi lahaa midda koobaad waxa ay tahay horta ilaahay cafis weydiiso qofku hadduu qalad galo oo qaladkiisana uu qorto ilaahayna uu cafis ka baryo ilaahay waa Ghafuur Raxiim marka labaadna qaladka qofka aad ka gashay inaad cafiska weydiisato ayaa muhiim ah khaasatan wiilka intaad guurka ka ballan qaaday